Okay, waxaan ka bilaabaynaa horta marka ugu horeysa waxyaalihii uu union soo qabtay muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxaan kasoo bilaabayaa 2022 baan kasoo bilaabayaa. Haddaynu kasoo bilowno maalintii la abuuray ama maalintii la aasaasay waxa weeyaan caawa dhan meeshan fadhiyayna. Marka meeting waxaan ugu talagalnay adiga saacad ilaa saacad iyo badh. Marka waxaan umalaynaa hadda already nuso saac baa baxay baan umalaynayaa. Activity-ga unionka waxaan ka bilaabaynaa 2022 unionku muxuu soo qabtay. waxaad ogaataan warbixintan aad siinayo ma aha waxa keliya ee uu unionku qabtay, waa waxyaalaha highlights-ka ahaa u malin tusaya. haddaan every bit oo uu unionku qabtay aan caawa meesha aan soo gelin lahaa waad garanaysaan lagama baxayo. marka iyadoo kooban waxyaalaha highlights-ka ah ayaan idin tusinaynaa. sababta idin tusinayna waxa weeye inaad ogaataan unionkiinu wuxuu idin qabanayo iyo wuxuu uu ku mashquulsan yahay. at the endina saan idin sheegay wixii aan idin caddayn ama su'aalo kale haddaad qabto markaasaad na weydiinaysaa insha allah. guddigii unionkuna way joogaan, marka iyaga laftooda su'aalaha way ka jawaabi doonaan haddii ilaaha yidhaahdo. marka waxaan ka bilaabaynaa 2022 waxaan ka furnay parking, waxaan ka furnay office. buildingka maad aragtay uu officekeenu ku yaala ama xafiiskeenu ku yaala waa buildingkaas, waxaa la yidhahdaa make it. stationka parking station 5 minute baa looga socdaa. marka qofkii district line soo raaca parking buu ga degaya, station buu ga degaya, kadibna waa the 5 minutes. qofkii gaari wata waxa ku dhow multi-story car park baa ku dhow. wadooyinkana wuu ku parking garaysan karaa. waxay leeyihin waa parking, waxaad iska bixinaysaa un appkaaga adoo isticmaalaya ayaad iska bixinaysaa. marka qofkii doonaya inuu visit ku sameeyo union maxay ahaydeen officeka unionka, marka waxa weeye waa si easy ku imaan karaya. ninkaas waa vice chairka oo xafiiska maxay ahaydeen fadhiya ka shaqaynayay, memberska caawinayay. halkaasna waxaad ka arkaysaan Axmed iyo Mustafa. Axmed waxa weeyaan waa office managerkeena weeyaan. shaqada wuxuu bilaabay 2001 January ayuu bilaabay. ilaa iyo maantana wuu inoo shaqaynaya, isagaa officeka haya. isaga ayaa wax walba oo officeka ka mas'uula caawinta memberska, telefoonada, waxyaalaha administrationka, everything oo uu sameeyo qof muxuu ahaaye office manager ah isaga ayaa ka mas'uula oo inoo qabta. Mustafana wuu caawinay maalintaas. markaad officeka timaado buildingka maxay aad hor timaado waxaa arkaysaa stickerkaas ad arkaysaa ku qoran tahay UK PhD Union 108 weeye numberkeenu. markaad gudaha soo garto corridorkii waa kaas, ama dhinacan kale markaad ka eegto meeshaas waxa weeye waa meesha waitingka oo lagu sugayo. dimitaanka waa soo qof la caawinayo oo qofka la sugayo halkaas uu sugi karayaa. marka laga baxo officeka aanu furnay aynu ku guuleysanay inaynu office samaysano oo aynu shaqaale samaysano 2022gii. waxaynu samaynay oo kale demonstration iyo protest ayaynu ku samaynay Uber. 6 December mid baynu samaynay 2022gii. 1st of Novemberna waynu samaynay. 27 Novemberna demonstration baynu samaynay. marka waxyaalahani waa waxyaalaha uu union qabtay, waxyaalaha highlights-ka weeyaan. si fiican aynu runtii demonstrationada noogu dhaceen, inkastoo maad aragtay numberka muxuu ahaye darawalada aan muxuu ahaye u baahnayn aynaan helin, sababtoo mar walba waxaan u baahannahay kumanaan darawal. alright, maxaa kaloon qabanay 2022gii. waxaanu heshiis la galnay Leaday. Leaday waad garanaysaan waxa weeyaan waa major law firm ama maxay ahaydee waa qolo lawyer oo maaragtay kuwa ugu waaweyn weeyaan. waa kuwii Uber maxay ahaydee qoladii ay u doodayeen usoo dhiciyey lacagta badan usoo dhiciyey weeyaan.
marka waxaan la galnay heshiis baan la galnay ku saabsan bold claim marka memberkeena waxay siinayaan 5% discount bay siinayaan 20% plus VAT baa laga qaadayaa commissionka wixii ay kusoo dhiciyaan waa no win no fee claim maxkamadduna waxa ay maxay hearingki ama maxay ahaydee in waxaa la dhegeysanaya keiska September tan soo socota haddii ilaha yidhaahdo maxaa kaloon qabanay hadda waxaan gelaynaa case worka minis taas waxay ahayd hadda ilaa waxaan soo sheegay madarta aan common interest for the whole drivers loo qabanayay laakiin individual drivers maxaan u qabanay maxaa loo qabtay waa 2022 baynu ka hadlaynaa keliya transport for London waxaa nooga yimid 215 case baa nooga yimid 76 case waxay ahaayeen license investigation means waxa weeye qofka license la doonaya in laga qaado weeyaan marka marxad kasta ha ahaatee license issue na waxa weeyaan waa dadka problemku ka haysto license ama qof uu license ka soo raagay ama qof license maaragtay waxyaalo kale muxuu ahaayay dhibaatooyin kale ka haysto waxa kuwaas weeyaan license issue siiru waxa nooga yimid sanadkaas 15 compliance officer waxa nooga yimid 9 baa nooga yimid 9 case minis waxa compliance officer ka minis waxa weeyaan waa dadka ay warning sida xaqdarrada u siiyaan amaba ay sida xun uga dhaqmaan oo aan complaint aan ka sameeyno weeyaan app company-ga 76 case ayaa ka yimid 66 waxay ahaayeen Uber Bolt waa 7 kuwa kalena waxay ahaayeen 3 bay ahaayeen marka mar walba Uber ayaa darawalada si xun ula dhaqma amaba ka xidha Bolt xidhashadeedu ma badna appka maaragtay rikoodhada jabiyey oo darawalada sida xun ula dhaqma oo absolutely macangiga ah cidna aan dhegaysanin oo aan u baahanahay inaan shaqo ka qabanno waa Uber other case work maxay ahayd hadday tahay insurance ama penalty ama problem with the EV waxa weeyaan sanadkaas 2022 waxaa nooga yimid 4 cases MBA-da 3 cases legal waxa weeyaan waa dadka maaragtay case-koogu culus yahay oo aan lawyer u gudbino 22 qof ayay ahayd sanadkaas inta kale waa office manager marka la isku daro casesko dhan waxay noqonayaan ilaa adiga 350 case bay noqonayaan waa 2022 okay waxaan gelaynaa 2023 muxuu union ku qabtay waxaa jirta maalin walba ama mar kasta ama sanad walba TFL waxay soo propose garaysaa sharciyo cusub marka sharciga highlight-ka ah oo aan ku hortagnay dhibkiisa waxaa ka mid ah waxaana u yaqaanaan overseas convictions marka dad arkayso halkan waxa weeyaan muxuu ahaayey waa Department for Transport ayaa maxay ahayd requirement kaga dhigtay TFL inay implement garayso maxay ahayd in case-ka arrintan arrintu maxay tahay overseas conviction waxa weeyaan marka aad laysanka qaadanayso ama marka laysanka lagu cusboonaysiinayo waxa lagu weydiinayaa last 3 years waddanka ma ka baxday ayaa lagu weydiinaya haddaad tidhaahdo haa imise bilood baad maqnayd oo dibadda ku maqnayd haddaad tidhaahdo more than 3 months waxaa lagu leeyahay waddankaa waxaad ka soo qaadataa waxaa loo yaqaano certificate of good conduct micnaheedu waxa weeyaan inaad dembilaawo tahay oo aanad waddankaa dembi ka soo gelin waa inaad warqad ka soo qaadataa marka taas ayay bedelayeen overseas convictionka waxay soo propose gareeyeen in aad ka soo qaadato certificate of good conduct waddan kasta oo aad tagtay marka laga soo bilaabo markii aad noqotay 18 sano adiga imagine 50 jir baa tahay laysanka ayaad apply garaysay kabacdina waxaa lagu yidhi ilaa iyo maalintii aad 18 sano aad noqotay UK ma ka baxday of course majority-ga private hire-ka waxa weeyaan waddan shisheeye ku dhasheen halkaasay ku soo koreen dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay qaxootinimo ku yimaadeen oo ay waddamo badan soo mareen marka waxay keenaysaa markaas
in ilaa 5 wadan aad ka soo qaadato certificate of good conduct oo ah last qofka kontonka jira waa last 22 sannadood waa in meeluhu tegey uu 3 bilood ka badan ku maqnaa waa inuu certificate of good conduct uu ka soo qaata sharcigu taasuu faraayay taasay proposal ka soo dhigeen taasay doonayeen inay marka implement gareeyaan marka arrintan markaan ogaanay waxaanu samaynay TFL baanu la fadhiisanay waanu kala hadalnay waxaa kaloon samaynay waxaanu doonnay looyraan doonnay maxay ku takhasusay regulationka ama maxay ahayd in regulatory muxuu ahaye in staff sida TFL oo kale ayaan u tagnay waxaan weydiinay sidii looga hortegi lahaa sababto waxaan isku diyaarinayna markaas inaan muxuu ahaye judicial review inaan qaadano lacagta doontaba ahaato oo aan madaragtay xataa madaragtay fundraising aan u samayno darawalada sababtoo ah tani mid la aqbali kara maaha qofku ama waa inuu been sheegaa ama uu laysankiisa lumiyaa marka nimankii waxay noo sheegeen looyrada ahaa in ay adag tahay in laga hortago sababtoo ah TFL keliya maaha cidda isticmaasha macallimiinta isticmaala shaqaalaha dowladda isticmaala meel walba waa la isticmaalaa oo waxaa lagaa doonayaa maalintaa 18 sano gaadhay in aad muxuu ahaye ilaa iyo maalinta qaangaadhay weeyaan iyaga soo yaqaanaan wadamadii aad tagtay oo dhan waa inaad ka soo qaadaa marka taa kuma guulaysanaysaan baana lagu yidhi haddaanu dhahno waa discrimination kuma guulaysanaysaan baana lagu haddaanu dhahno muxuu ahaye waa illegalna kuma guulaysanaysaan baana lagu yidhi marka maxaan ku guulaysanaynaa waxaan ku guulaysanaynaa oo keliya haddaanu laga yaabo inaan ku guulaysano inaanu idhaahno okay waxba kama qabno inaanu certificate of good conduct ka soo qaadno wadamadii oo dhan laakiin annagu lacagtaanu bixinaynaa TFL ha u doonato oo muxuu ahaye iyadu wadamadii ha la xidhiidho ha ka soo qaadato taas keliyaad maxkamadda ku saari karaysaa lacagta madaragtay kusti garaynaysaana waxay noqonaysaa adiga ilaa between 10 to 20,000 oo haddii lagaa guulaystana intaa in lago TFL aad bixinayso it doesn't matter fundraising baa lagu samayn karayaa sababtoo ah dhibka ay keenaysaa ka badan 100,000 oo dirawal oo muxuu ahaye in London ka shaqeysa ay affect garaynaysaa midda kale London kaliya maaha London marka lagu implement gareeyo ka bacdina waxa loo gudbinayaa gobolada loo gudbinayaa marka waxaan samaynay talooyin kale aan raadinay TFL-na waa anagii la fadhiisanay waxaanu samaynay proposal baanu soo gudbinay aan isleenahay darawaladan dib weyn uma keenayaan TFL-na way ku qancaysaa marka proposalkan soo gudbinay wuxuu ahaa in ay ka dhigaan last 10 year halkii ay ka dhigi lahaayeen ilaa iyo maalintii aad 18 sano jirtay sababtoo ah majority of the drivers maxay ahayd UK jooga 10 sano ugu dambeysay waddanka way ku noolaayeen way yaryihiin inta maad aragtay 10 sano ka yar joogay waddanka haddaad 10 sano waddankan aad joogtay kuma qabanaya marka sharcigaas proposalkii baan u gudbinay markii aan u gudbinay way aqbaleen marka proposalkii ayay qaateen marka micnaheedu waxa weeyaan markaas muxuu ahaa haddii UK PhD Union aanay effort ka samayn lahayn waxa weeyaan maanta easy ayay u hirgelin lahaayeen sharcigaas maxaa kaloon qabanay ama uu union ku qabtay unionku siiruga horta ula dagaalamayay ilaa iyo maalintii uu soo baxay TFL waxay lahayd muxuu ahaye license action baan ka qaadanaa qofkii 2 jeer ku dhaca marar badan baanu la xidhiidhnay TFL oonu ku niri soo caddeeya license action wuxuu yahay way ka warwareegeen meeyarkan ka bacdeen warqad u qornay meeyarkii TFL na isku xidhiidhin badanaa markaad meeyarka aad warqad u qorto wuxuu u gudbiyaa isaguna TFL sababtoo TFL ba qusaysaa maaragtay waxa laga hadlayo TFL badan ku soo joogaa adiga circle-kaas aad galaysa hadii waxaan go'aansanay inaan sugno ilaa inta ay license action qaadayaan aan ogaano waxaad license action ku yahay ka bacdina markaas aan talaabo aan qaadno November dii la soo dhaafay waxa dhacday markaas in group 1 ay ku bilaabeen inay license action ka qaadaan means waxa weeyaan qof kasta oo
group 1 kamid ahaa waad garanaysaan gruubyada loo kala qaybiyey maxaa siiruga waxa weeye qolada deadline-koodu ahaa September last year waxay bilaabeen inay qof kasta uu laysanku ka dhaco inay yiraahdaan laysanka laguma cusboonaysiinayo ilaa inta zero ku soo baasayso waxaan bilownay inaan markaas muxuu ahaayay TFL kuwa ugu sarreeya aan warqad u qorno aan u sheegno waxaan inay xaqdarre yihiin aanay soconaynin adiga hadal idaan ku daalinin waxay nagu casuumeen ma aragtay inaan face to face aan kulanno 21 December ayaan la kulannay aniga iyo muxuu ahaay rag kale oo ma aragtay kamid ah guddiga unionka waxaan la kulannay general managerkan la kulannay communicationka markii hore aan sameynayno waxaan la sameynay muxuu ahaay directorka muxuu ahaay TFL oo maxay ahayd qaybta taxi and private hire iyada marka soo wakiilatay ma aragtay general managerka waa ninka hooseeya iyada iyo head of the stakeholderska ninka u qaabilsan ma aragtay la xiriirida adiga waa foreign muxuu ahaay adiga waxaad qiyaasi kartaa waa foreign muxuu ahaay minister oo kale oo TFL-ka iyo muxuu ahaay ninka ma aragtay haysta assessment teamka siiruga waxaanu kula kulannay meeshan ay imtixaanka ku qaadaan ee O2 ayaan kula kulannay way nagu soo wareejiyeen wayna tuseen waxa ka socda backgroundka maaragtay sida ay maaragtay u sameeyaan siiruga iyo hawlaha meesha ka socda dhan soo tuseen soo wareejiyeen kadibna markaas ayaanu xafiis bayna geeyeen xafiiskaasana marka discussion dheer baan galnay oo muddo dheer socday marka waxaan ka doodaynaa waxa weeyaan inay joojiyaan license actionka oo aanay sababtoo ah fair maysan ahayn license action dowladda laga qaado waayo waxay yidhaahdeen 2 times hadaad ku dhacday imtixaanka markaasaa license action laga qaadaya laakiin imtixaanka waxay ka qaadayeen dad aanay maxay ahayd license waxa ay license action ku sameeyeen ama ay u diidayeen dad aanay imtixaan ba usoo dirin oo imtixaan ba gelin waxaan ku niri waxaan wax cadaalad ah maaha marka adiga conversation fiican baana dhex maray iyo wada hadal wanaagsan baana dhex galay si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay noo respect gareeyeen si fiican bay noo sharfeen markaan meesha u tegaynay waxaa kaloonu ka hadalnay muxuu ahaayey inay improvement ku sameeyaan muxuu ahaayey testka sababtoo ah darawalladu waxa weeyaan ma aha dad oo jaamacado ka soo baxay waxay u badan yihiin dad maad aragtay muxuu ahaayey xoogsita ah imtixaanka ay ka qaadayaana waa imtixaan aad u adag marka inay imtixaanka wax ka bedelaan taasna wayna dhegaysteen waxaa kaloo nu kala hadalnay insurancega ayaanu kala hadalnay sababtoo ah baryahan dambe waad aragteen Uber monopoly ayuu ku siiyey insurancegii ayuu monopoly wuxuu ku siiyey dhowr company buu ku siiyey marka waxay doonaan bay darawalladu weydiistaan kuway doonaanna wabay u diidaanba inay maxay ahayd siiyaan insurance marka taana waanu kala hadalnay laakiin nasiib darro TFL awood uma laha inay arrimahaas oo wax ka qabato sababtoo ah waxa weeyaan waa private companies marka muxuu ahaayey dee waana ganacsi kay waxay yidhaahdeen annagu insurance kasta hayso waa insurancegaagu waa inuu yahay higher and reward cidaad ka soo qaato annaga muxuu ahaayey wax dhib ah kuma qabno qofka maad aragtay doortay 6 company waa Uber marka cidda la doonaya marka inay shaqo ka qabato Uber waa inaga marka TFL marka waxay samaysay January waxay sameeyeen waxay joojiyeen license actionkii ay ka qaadayeen group 1 marka dadka confusion badan ay taas ka qabaan dadka qaar baa u qaatay majority aad u badan baa waxay u qaateen in siirugiiba la joojiyey ama la cancel gareeyey siiru la cancel gareeyey ma jiro siirugu waa CDC waxa la joojiyey enforcementiga ay ku sameynayeen license actionka ay ka qaadayeen group 1 bay joojiyeen min waxa weeyaan group 1 oo markii hore license u diidayeen ay lahaayeen ilaa aad ku soo baasto siiruga laguma siinayo license ka dhaco isboonisiinayaan qoladin ba waxa la yiri muxuu ahaayey license-kina iska haysan kartaan laakiin waa imtixaan gasha inta kaliya isbedeshay marka taas saasa loola socdo confusion badan baa meesha ka jira
maxaa kaloo union waxaanu samaynay training baanu samaynay tobanka sectionba video baanu samaynay oo aan ugu sharaxayno af Soomaali youtube-ka unionkana way ku jirtaa iyadoo Soomaali ah qofkii doonayaana muxuu ahaayey meeshaas ayuu u doonan karaya waxaa kaloo samaynay website baanu samaynay sidoo kuwa lacagta laga bixiya ah oo bilaash u ah memberska oo ay practice ku samaynayaan intaas waa waxyaalihii commonka ahaa oo aan dirawalada maaragtay aan muxuu ahaayey aan maxaa heeday general maxaa heeday u qabanaynay individually dirawalada haddaba maxaan u qabanaa waxaan ka hadlaynaa soo maaha 2023 baan malaynayaa memberska muxuu ahaay caawintoodii waa case work 2023 waxaa noo yimid 206 baa noo yimid case 206 case 64 waxay ahaayeen license investigation waa qolada license laga qaadayo 65 waxay ahaayeen license issues oo ah dadka license ka soo raago ama dhibaatooyin badan ay ka haystaan oo kale siruga waxaa ka yimid 64 qof oo problem siru qaba ayaa noo yimid oo aan ka caawinay compliance officer-kana waxaa ka yimid 13 qof oo ayagan dhib ku qaba dadkaas waa dadka ay dhibeen ama warning beenbeena ay siiyeen amaba ay si xun ula dhaqbeen adiga waa dadka ka soo cabanayay oo unionka u soo cawday oo unionka marka wax u qabtay ab company-ga 19 case ayaa noo yimid waxaan jeedaa 85 wuxuu ahaa Uber buu ahaa 3 Bolt bay ahayd markaas waxaad ka arkaysaa Uber inuu yahay ka dhibka ugu badan ay darawalada ku qabaan caseska kale talinka ba soo qaada insurance problemka iyo waxyaalahaas maxay heeday 26 baa noo yimid MB-yada waxaan ugu qornay 13 legal waa dadka maaragtay case-koogu culus yahay oo loo diray muxuu ahaayey lawyer loo diray waxay ahaayeen 34 marka la isku daro total waa 400 oo wax yar dhiman oo case waa 2023 marka waxyaaluhu unionku qabtay baynu ku jirnaa marka waxaa kaloo idin soo diyaarinay CCTV oo TFL approved ah oo aad haysataan discount wanaagsan marka anis baan u yar dhiibayaa si uu muxuu ahaayey arrintaa ugu warbixiy anis go ahead waa idin salaamay dhammaan ragga odayaasha halkan ku jira meetingka caawa Zoom UK Beach Union waa nin anis la yiraahdo waxaan rabaa inaan horta awalan si kooban intii badnaa horta maxuud baa ka hadlay unionka waxqabadkiisa laakiin waxyaaba badan oo u baahan in maaragtay iyadana lafteeda la taabto ayaa muhiim ah qofka markuu union ku jiro iyo markuusan ku jirin qof walba wuu ogyahay difference u dhexeeya qofka union ku jira waa qof buur ku tirsan oo kale marka oo si mataqaanaa kalsooni ah hawshii uu haysto laakiin markuu keligiis yahay dabcan dhammaantood waa garan karnaa markii qofka unionka ku jirin dhibaatada la kulmo marka sidii unionka aan u aasaasnay dad badan oo aad u tiro badan ayaa ka faa'iidaystay markhaatina uma baahna oo dadka gurubyada ku jira ama memberska ah way ka warhayaan unionka qofku markuu ku jiro waxaa laga yaabaa markii TFL ama Uber ama any problem oo la xiriirta shaqadiisa darawalnimada ay wax ka soo hadlaan in maaragtay si kalsooni leh unionka ula soo hadlo unionka hawsha oo ka gasho isna uu ka seexdo marka si degdegna hawshaas maaragtay wax looga qabto laakiin qofku markuu union ku jirin bilmatalan TFL oo kale waxay dhahaysaa within 7 days
dacwadana lagu haystaa kasoo jawaab. qofkii waxaa laga yaabaa maaragtay inuu hawlahan oo kale oo u fara dhudhubnayn intii uu xiraadina waxaa laga yaabaa sharci inuu ka dhaco. laakiin markuu union ku jiro straight away unionka la soo xiriiraya, unionka hawshaas la wareegaya. marka faa'iidada qofka markuu unionka ku jiro oo weliba dee qarashka uu bixinayana aad ogtihiin inay 10 gini ay tahay bishii, 10 gini qofka bini'aadanka ogtihiin waxay u goysa hadda. waxyaabaha uu kaga kaaftoomayo oo sida istiraexada leh oo shaqadiisa ugu qabsanayo oo 10 gaagis uu qabanayo kama cadda tiro ma laha. bilmathalan waxaa laga yaabaa qof unionka bil iyo 2 ku jiray inuu kiis been abuur ah uu ku soo baxo. ma maqashin si fiican. inuu kiis been abuur uu ku soo baxo kabacdina la yiraahdo kiiskaaga waaba kiis maxkamadeed. kiiska maxkamadda waddankan dhowr kuna ku baxda markii maxkamad kiis la geeyo. marka qof 10 gini bixinayo 3 bilood ku jiray oo conditionkii unionka buuxiyey, imagine lacagta unionka uu bixinayo hadduu xitaa 5 sano 6 sano ku jiray halkaa maxkamad oo kiiskaas lagaga difaaco uma dhiganto. marka in all 10 gini oo qof u baxsaday oo unionka uu ka mid yahay faa'iidadiisa halkan laguma soo koobi karo. waxyaabaha kale oo unionka qofka darawalka uu qabto waxaa ka mid ah oo in hadda مثلا hadda kaamaradan aan ka dhex galay maxamed oo kale dhowr bilood baan ku jirnay. waad ogtiin dadka darawaliinta waxaa lagu xujeeyey in qofka uu kaamara haysto, kaamaradaas laakiin ay TFL approved ay tahay. markii la yiraahdo kaamarada TFL approved qofka waa inuu xirtaa 500 to 700 wey marka qiimaha si professional marka loogu xirayo oo shahaadada aad qaadanaysid oo si cabsi la'aana maaragtay elboorada iyo station meel walba aad uga shaqaysan kartid TFL aad u haysid waxaas ka difaacday. marka unionka uu ka howlgalay sida uga howlgalo baahida unionka darawalka mar walba muddan ku jirnay. waxaan soo narooganay 2 company annagoo ka yaraynay tiradii ka dhinnay VIT-dii qofka la saari lahaa, installationka laga yareeyey oo meeshuu 700 ka bixin lahaa 300 uu safgaroodo. marka qofka individual uu tago company toos ugu tago waayo kaamarada marka iibsatid installationkii baa ku raaca, VIT-na waa ku raacdaa. qarashkaas oo dhan unionka negotiation buu ka sameeyey dadka darawaliinta in laga dhimo. marka 4 ilaa 450 ayaa markaa hadda aan kusoo dhammaynay. taana waa guul soo hoyatay dadka memberska ka unionka. unionka hawlaha kale oo mustaqbalka raba inuu qabto darawaliinta waxay tahay waad ogtihiin xaaladda insurance-ka, waad ogtihiin xaaladda gawaarida kiradeeda, yani insurance fleet, rental fleet, yani hawlaha ballaaran oo raba unionka inuu darawaliinta u qabto way tiro badnaanayaan insha Allah mustaqbalka. wax meeting aan kusoo koobi karna maaha laakiin that's the highlight. marka qofku inuu union ku jiro oo 10 gini bishii la baxo it outweighs yani way ka faa'iido badan tahay waxa uu ka faa'iidayo maaragtay union ku jiritaankiisa. intaasaan kolley hadda aan untafa maaheer ka xasuustaa. kolley kiiskan hadda dadka halkan ku jiro unionka midka uu qabanayana waa kiisaska Uber ay la raba in maaragtay laga mira dhaliyo sababta uu uga xiran yahay. imagine kiiskan hadduu hadda uu maxkamad oo kale unionka qarash buu ku bixinaya, qarashkaasna qarash yar ma aha. marka unionka faa'iidadiisu calaa kulli xaal ma yara. ragga union ku jirana way ogyihiin. kiisaska unionka hadda uu soo bandhigay maxamedna waa ka war haysaan. insha Allah waxaan rajaynaynaa in unionku noo sii ballaarto meel mustaqbalka jiilkeennan iyo jiilka soo socdana ay ka faa'iidayaan ilaahay ka dhigaan rajaynaynaa. intaasaan kaga baxay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدبض ما سنتي آنس. هل كسي ودينا waxaan rabaa halkaa inaan uga gudbo new license requirements maxaa cusub oo maxay hayday in lagu soo kordhinaya. waxa weeye inaad ogaato weeyaan si aad laysankaaga u haysato requirementiga cusub ee kugu soo kordhay muxuu ahaye in laysanka. waxay nagu soo kordhay maxay ahayd waxaan leedahay DBS check. waxaa lagaa doonayaa marka la gaaro 26 February waa bishan hadda bilaabanaysa berri bilaabanaysa 26keeda marka la gaaro waa inaad subscription aad ka haysataa DBS service updates waa mandatory.
overseas criminals check waa tii aan hadda aan ka hadlayo oo aan ka soo dagaalanay waxay bilaabanaysaa 1 July 2024 kay bilaabanaysaa displaying waxa weeyaan inaad in warqad lagu dhajiyo gaarigaaga warqadaasna ay ku qoran tahay information ku saabsan private hire-ka iyo especially sidii ay customer complaint u samayn lahaayeen haddii aanay happy ku ahayn muxuu ahaye servicekaaga waxa weeyaan iyadana waxa ay bilaabanaysaa 1st of July 2025 ay bilaabanaysaa marka sharciyada cusub oo soo socda waa kuwaas halala socdo first ka ugu horeeya waxa weeyaan waa DBS check weeyaan waa qasab weyn qof walba in uu samaysto haddii kale waxa weeyaan conditionka kaa maqan marka waxaa laga yaabaa in markuu ku xasuusiyaan way dhici kartaa in license actionna kaa qaadana way dhici kartaa marka qof walba saas ula soco futureka maxaan qabanaynaa waxaan xoogga saaraynaa oo la socotaan priceka lagu qaadayo Uber ama app company-ga oo dhan isku dar waxa weeyaan waa unacceptable innaga ayaa gaariga iska leh innagaa soo iibsanay gawaaridii way qaaliyowday batroolkii wuu qaaliyoobay inshuransigii cirkaasuu marayaa maciishadii kale iyadana cirkaasay maraysaa laakiin pricekii aan ku qaadaynay dadka marba marka ka dambaysa hoos ayuunbuu sii socdaa sababtoo ah gacanta waxa ku haya oo decision ka gaaraya priceka nin aan kharashkii bixinaynin oo app company-ga ah waa adiga oo tukaan intaad furatay nin lagu hor fadhiisiyey oo la yidhi ninkaas qofku kuu soo fasaxa mooyaane nin kale ma qaadi maxay haday waxba kama iibin kartid asagana uu priceka goynayo maxaa ka quseeya adiga kharash kaa baxaya isaga meel qof kasta oo maad aragtay muxuu commission ka helayo ayuu kuu soo diraya marka Uber waa saas oo kale kharash kama baxayo innaga ayuu kharashku inaga baxaya gaarigaagii weeyaan gaari hadda bal hadda eeg soo helaysa gaari 10 kuna oo BHP waa habeenkii xalay u tegey ma soo helaysa gaariga ugu yar wuxuu ka bilaabanayaa 15 20 30 40 ayuu marayaa electric ama plug in kaliya laga rabo wax kale oo maad aragtay maanta muxuu ahaye aad ku shaqayn karaysaa ma jirto yaa haysta 20 kun wuu yar yahay qof 20 kun haysto oo gaari soo iibsan karaya kulligan finance ku jirna ama kiran wadana taas micnaheedu maxaa weeyaan commitment dad gaariga soo finance garaystay oo haddii maanta ay wax ku dhacaan aan haysanin sidii ay maad aragtay u bixin lahaayeen dadka qaar baa bishii waxay bixiyaan 1500 oo gaariga keliya 800 900 korto 1000 waa iska caadi marka wuxuu weeyaan eeg kharashkii oo saas u kordhay culayskii dirawallada oo saas u sii weynaaday oo ah wax unbearable oo aan la qaadi karayn ah ayaa haddana app company-giina ay iyaguna priceki say doonaan ka yeelayaan marka yay yihiin cidda aan sugayno oo inaga celinaysa nimankan yay yihiin ma jiraan cid kale ma jirto powerka Uber lagaga adkaan karaya iyo app company-ga waa dirawallada sababtoo ah dirawalladu hadday yidhaahdaan kuuma shaqaynayno app company-gu haba yaraatee waxba ma haystaan marka innaga as unionka marka laga hadlaya maaha maamulka keliya union waxa laga hadlayaa maamulka iyo qof kasta oo member ah innaga ayaa laynaga rabaa in aynu dirawallada kala kicinno inaynu qof kasta oo private hire meeshuu doonaba ha joogo inaynu kicinno tusno dhibka ku jira barno weyga aan kaga bixi karayno marka sanadkan waxa weeyaan planninkeenu wuxuu yahay app company-ga inaan la dagaalanno kana guul gaadhno kana maga dhalino waxaan samaynaynaa unionada kale ciddii doonaysa inay nala shaqayso waan la shaqaynaynaa ogaada markaad union la shaqaynayso micnaheega ma aha
mid kastoo calan qaato oo meel hor istaaga inaad daba gasho waxa weeyaan unionadu markay shaqaynayaan wada hadal bay marka hore wada galaan waxay ka heshiiyaan waxa ay ka wada shaqaynayaan sida ay u wada shaqaynayaan wixii meesha ka soo baxana sidii ay u wada qaybsan lahaayeen bay ka heshiiyaan marka waxaan xoogga saaraynaa sidii aanu unionada kale aan u kicin lahayn darawlada keliya maaha darawlada inaanu kicinno unionada kale inaanu kicinno cid walba oo aynu isku dannahay oo keenaysa inaynu ka guul gaadhno hadafkeenna ah inaynu helno lacag aan iskaga bixin karayno kharashka culus ee aynu dul saaran taa marka laga baxo waxaa kaloo isku dayaynaa inaanu samayno waxyaalaha kale oo darawladu u baahan yihiin oo maaragtay culays ka yaraynaya waxaan daba aragteen AA-ga waxa weeyaan waa inaad noqotaa muxuu hayay business privatekii berigi hore aan ku jiri jirnay waxaas ma shaqaynayaan wuxuu ka bilaabanaya dhowr boqol buu ka bilaabanaya iyada lafteeda waxaan rabnaa inaan dhiil la soo galno waxaa kaloo doonaynaa inaan la dagaalano dirawal maxay ahayda insurancega waxa ay keeneen inay dadka darawlada qaar ay lacag fooqal caqli weydiiyaan darawlada qaarna uba diidaanba inay insurance maxay ahayda siiyaan marka waxa weeyaan waxyaalahaasoo dhan waxaan ku dagaalami karaynaa oo keliya inaga oo wada jirna inaga oo hal af ku wada hadlayna inaga oo hal action wada qaadayna un baynu kaga guulaysan karayna marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan doonaynaa inaan idinka helno idea fikrado muxuu ahaaye sidii aynu ula dagaalami lahayn muxuu app company-ga action noocee ayaynu ka qaadnay kadibna su-aashaada soo daysanaysa marka qof kastoo su-aal qaba amaba haya idea gacanta ha taago marka waan siinayaa marka ugu horeysa guddiga ayaan muxuu ahaaye ayaan maxay ahayde siinayaa sidaas ku barataan marka guddiga wato marka ugu horeysa gacanta taagaan qofkii doonaya inuu dhowr kelmadood yidhaahdo cid guddiga ka tirsanoo dhowr kelmadood rabta inaad tirahdaa ma jirtaa okay guddigu iska aamustay no problem qofkii su-aal qaba gacanta taago waa waktigii su-aalaha laydinka jawaabi lahaa waa waktigii muxuu ahaaye waxaan u malaynayaa cid gacanta taagtay ma arkaye ma technical difficulty ba dadka haysta mise cid su-aal qabtaan jirin okay hal nin baa arkaya oo gacanta taagay iphone ay ugu qoran tahay okay go ahead soo daa su-aasha mr iphone magacaaga noo sheeg kabacdina su-aashaad ku xiji asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa cabdikariin unionkaan ka tirsanahay su-aasha waxaan rabay inaan ku weydiiyo walaalow maxay ahayto arrinkan dbs-ka tiri 6 February bilaabana si faahfaahin fiican naga sii insha allah okay waxaan samayn doonaa email baan idiin soo diri doonaa okay oo aan linkigana idinku soo dari doono meesha aad maaragtay meesha loo baahan yahay inaad maaragtay meesha loo baahan yahay inaad iska qorto iyo instructionka ayaan idinku soo diri doonaa before muxuu ahayde before that day marka insha allah thank you maasanta okay waa
صالح لوتن بان مالينا جوها وأنا ويش ويش جوها صالح لوتن في عم بالو مغليا ملي مغلها في بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها guddiga maamulka iyo memberskaba waa idin salaamay oday saalax luton la yidhaahdo magaalada luton degan aan ku magacaabanahay marka hore fursaddan waxaan ugu faa'idaysanaa maaragtay inaan walaalahii maamulka noo hayo inaan u duceeyo ilaahi subxaana watacaala ajir idinka siiyo maaragtay wanaaggii farada badnaa shaqadii farada badneed oo qabateen waana ku ammaanan tihiin annagana waxna looga baahaya maaragtay inaan annagana haddaan nahay memberska annagana aan doorkeena qaadano midda labaad waxqabadkii farada badnaa uu chairmanka noo sharaxay iyo anis waa fahnay waxaan u malaynaya inaad maaragtay usoo daraysaan cost of running yani base kan ma aha meesha ku habboonayd haddaan khaldanahay ay tahay meesha laga sheegi karaa in ayadoon maaragtay tii ku habboonayd in ahayn oo kolleyba adinka maamulkiina garanayo iyo sida aad u tartiibsateen laakiin waxqabadkii wixii dhacay wixii maaragtay aad ku guulaysateen wixii aad isku daydeen waxa weli maaragtay aad ku jirtaan mustaqbalka wixii qaban lahaydeen maamulku sharxay laakiin ma ahayd in maaragtay lagu soo daro maaragtay what is costing the union how much is costing the union all these things maaragtay arrimaha dhan ood qabanaysaan oo kale marka yaa laga jawaabin haddayna ahayn forumkii ay maaragtay ama meeshii su-aashaas iska weydiin laha haddayna ahayn oo ama waktigii ha noqoto ama meeshii ha noqoto laakiin hadday tahay waan ku saxsanahayna jawaabtaas ayaan rabi lahaa in lisiiyo asalaamu calaykum جزاك الله صالح لوتن amaantaada maantay maxay ahayd iyo ducada aad u ducaysay guddiga ana waxaan leeyahay ilaahay hanaga aqbalo hawl fiican bay hayaan runtii marka la rabana rag voluntary ayaa hawshaas soo qabtay qarash badan baa ku baxay unionka laakiin taa waxaa looga hadlaa inta badan muxuu annual general meetingka looga hadlaa marka insha allah taas waxaan soo bandhigi doonaa annual general meetingka marka aynu muxuu ahaye inaga dhammaado waxaan kaloo samayn karnaa muxuu ahaye waxaan u malaynaa hadda ka hor waan soo dhigaan umalay gurubyada sanadkii 2022gii marka 23ga weli lama samayn xisaab xidhkii 22gii gurubyadu ku jira financeka maaragtay wixii ku baxay unionka marka kanna insha allah marka uu dhammaado oo waxa weeyaan marka ugu horeysa waxaa la sameeyaa xisaab xidh baa la sameeyaa xisaab xidhka marka la sameeyo kadib waxaa la sameeyaa auditor baa la sameeyaa wax xisaab xil ma leh nin auditor ayna soo baadho weeyaan waxaana inay si saxa ku wada baxeen kabacdina markuu habbi ku noqdo shaambad buu ku dhejiyaa waa la fiilgareeyaa markaasaa memberska loo soo gudbiyaa marka insha allah markaasaan taana idiin soo gudbin doonaa waxa ku xiga qofkii su-aashiisa si fiican looga jiro gacanta uu taagi karaa adana kusoo noqon karaa no problem afi go ahead magacaaga iyo su-aasha isku xigta please afi waxaan u malaynayaa
maybe he's driving maxay ahayd ama telefoon kale ku jira waxaan u gudbinayaa ninka ay ugu qoran tahay Anas Wab. Go ahead, unmute yourself. السلام عليكم ولا مقريا si fiican baa lagu maqlayaa magaca iyo su'aashiisa u ka xiji. أنا سأد بانكو سلامي محمود adiga iyo tiimkaaga sida fiican aad noogu sharaxday iyo dhammaan asxaabta kale PhD driver dhammaantiin aad baan is salaamay su'aashan qabo waxa weeye arinta insurance-ka ani waxaan rabay tala inaan ku yar darsado oon dhaho for example Uber kambaniyada ay approve garaysay inkuba haddaa sida CCTV-ga intaa la soo dilgaraysiin aad tiraaheen intaasoo driveraan haynaa discount maxaad noo samaynaysiin inaa bal arintaa ay gadmayso su-aasha labaadee qaba waxa weeye arinta seriga waxaa tiri group 1 marka group 1 sidee looga dhaafayaa bal iyadana halkaa inaad soo sharaxdid sida seriga looga fududeeyey su-aasha saddexaad aan qabana waxa weeye arinta DBS-ta subscribe-ka sideed iyaka maaragtay tiri bishan 26 February iyadana waxaan rabnay inaan bal iyadana si faahfaahin aad naga siiso sida loo saarayo mise sidii caadiga unbaa oo waxba ay ka duwanaynba mise marka waa si gaar saddexdaas su'aalood baan qabay inaad haddii laga jawaabi karo please thank you. Okay, jazakallah. Su'aasha horta si rugan kugu horeyna group 1 ka su'aasha horta confusion weyn ba ku jira horta lagama dhaafin groupna lagama dhaafin siruga waxa la joojiyay license action waad garanaysaan license-ka ayaa loo diiday in la siiyo marka waxa la yiri si temporary ayaa muxuu ahaye ma waa si haysan kartaa license-kii laga qaaday baa la yiri waa iska si haysan karaysan laakiin lagamana daynin muxuu ahaye in siruga imtixaanka waa inay galaan waa inay ku soo baasaan waana muddo gaaban inta ay sugayaan oo maaragtay license-ka maxay ahaydee license action-ka laga joojiyey means license-kii laga xanibayey baa laga joojiyey ayaa la yiri means waxay iyaga inaan license la siin bay ahayd ilaa ay ku soo baasaan marka taasaa laga joojiyey waxa license-kiina sii haysta waana muddo gaaban marka taas waxba lagama daynin marka yaan confusion maxay ahaydee lagu gelin DBS service-ka waxa weeyaan email baan idin soo diri doonaa haddii la yiraahdo idin sharaxaysa sababtoo ah haddaan caawa sharaxo waxa weeye waxaad u baahantihiin linkigii iyo instruction baad u baahantihiin waxaan samayn doonaa email baanu idin soo diri doonaa emailka markaas muxuu ahaye emailadii la socda haddii la yiraahdo arrinta insurance-ga maxay ahaydee Uber bay kula jiraan deal Uberna wuxuu haystaa 10 kun dir walba haystaa marka ay haddaad weydiisato discount waxa ay ku weydiinayaan iyagana inaad wax u samayso marka annaga ma rabno inaan madarta habeeraata iyago inaan wax u samayno waxaan rabnaa annaga inaan action ka qaadno anagu union baana minis waxa weeyaan action baynu ka qaadaynaa hadday maxay ahaydee sida aan rabno ay noola dhaqmi waayaan waa inaan action ka qaadno waxa weeyaan haddaynu boycott ku samayno kii isku keen waalwaala waxa weeyaan muxuu haye lacag bay luus garaynayaan kabacdina wayna baryayaan wayna hoos markaas intayna baryaan bay odhanayaan please waxaan doonaysaan inaan idiin samayno kadibna markaas anaga la negotiate garayn karnaa inagu taynu kaga adkaan karnaa waa taas ayaga haddaan dhiil la galno dhiil lama geli karno oo mata brokers ma nihin brokers ma noqon karno dhiil kale lama geli karno oo discount haddaan discount noo siiyo dirwaladeeda ayagana waxay ku weydiisanayaan wax kale oo aanad siin karayn bay ku weydiisanayaan bilaash kuguma siinayaan marka the best way oo aan kaga adkaan karna raggaas waxa weeyaan inaan tallaabo ka qaadno muxuu ahaye action inaan ka qaadno waxaan ma su'aalaha saddex su'aal baan ka jawaabay mise waxbaan ka booday mise weli madmadow baa ku jira mayu sax waad ka jawaabtay bas hal su'aal kaliya raba inaan ku darsado asxaabta kalena waanu sii dayn qaybta CCTV-ga ma qofka owner inuu gaariga lahaadaa mise ijaar xataa waa la ogol yahay inuu ku xidhan karo wassalaamu calaykum adeeg ku xidhan tahay haddaad ninka gaariga iskale aad CCTV haddaad maxay ahayd lacag aad 450 intaad ku invest garayso oo dee kulli adeeg kugu xidhan tahay
sababtoo ninkan waxa laga yaabaa in beri ku yidhaahdo gaariga ii soo celi صح ya اوكي marka وحاجات ah وايو كان سيدا waay hola maxamed cabdicaziis go ahead السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مقلاب أنا ملاينا يا si wanaagsan baa lagu maqlaa soo dhawo sheekha maxaa kugu dhacay ma mute baad geli هلا ما مقصان haddaa lagu maqlaa ha haddana mute baad gelisay iska saar هذا ha سيد مقصان ha saas ku daa ha waa lagu maqlaa si fiican baa lagu أوكي ها هي وحا السبب مالك marka ugu horeysa horta waxaan salaamayaa horta guddiga unionka dhammaantiinba waana ku mahadsantihiin shaqooyinka aad noo soo qabateen iyo dadaalkiina iyo howlaha aad wadaanba waan kaga mahadnaqaynaa wax badan baad soo qabateen welina waa noo dhiman yihiin sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta ku jirta caawa qolka ku jirta ee dhegaysanaysa su-aasha ugu horeysa horta aan qabo horta waxay tahay oo aanan maqlin waxaa jirta darawaliinta ilaa intii muddo aba way soo socotay ama weligeedba waa soo jirtayba in dadka customarka ah ama ridersku ay abuse gareeyaan darawaliinta ha noqoto af ha noqoto gaariga oo laga jabsho ha noqoto gacan loo qaado ha noqoto dadkaas maxaa unionka iyaga bal horta iyaga bal oga diyaarsan in ay darawalka kala qabtaan oo ay ka caawiyaan sidoo kale in qofkaas customarka ah ma garanaysaa culays la saaro oo dhinaca TFL-ka culays laga saaro maadaama darawaliintu ay yihiin ma garanaysaa kuwa public transport oo dadka caawinaya in xushmad dheeraada iyo la siiyo respect la siiyo oo shaqadooda lagu tixgeliyo sida ma garanaysaa kambaniyada kale ama meelaha kale ama dadka shaqooyinka kale ku jiro oo kale sida loo tixgeliyo ama loo ixtiraamo oo kaleba oo loogu ixtiraamo shaqada ay bulshada u hayaan bal taa horta laftigeeda waa jeclaan lahaa bal unionkaygu bal haddii wax ugu diyaarsan yihiin in ay bal noo sheegaan haddeen uga diyaarsanana dabcan in lagu daro oo qorshaha lagu darsado midda kale aan ku darayo waxay tahay waa tala soo jeedin middan muddo fara badan horta waxaanu qabanaynay mudaharaadyo muddooyinka ugu dambeysana xoogaa mudaharaadyo dadkii inay aad u soo yaraadeen baad moodaa dadkuna ayna si qaab ahaan ayna u jeclayn marka waxaan fikir ahaan istusay in unionka iyagu horta marka ugu horeysa ay ku dayaan balqaab kale aan ku dayno oo aabka oo laga xirto oo kale laakiinse waxay u baahan tahay maasif dad ah oo aad u fara badan ha noqoto ma garanaysaa inta unionkeena ku jirta inay unionkeenu ay xiriir la sameeyaan unionyaasha kale hal maalin oo barobi cayiman wiig walbaba laga xirto oo qaabkaa loogu wado 24 saac dhammaan aababka oo dhan waxaan isleeyahay arrintaas haddii qaabkaa lagu wado oo muddo ay lagu joogteeyo oo wiig walbaba hal maalin laga xirto ugu yaraanna barobi dad ay ka qayb qaadanayaan ugu yaraan 5,000 iyo wixii kasii badan baa aad iyo aad ugu fiicnaan lahayd in horta arrimahaas horta ay xoogaa noo soo sara joogsan lahaayeen ay maxay to dalabkaygana ay dhegaysan lahaayeen ayagiyo TFL-kaba waan qabaa sababtoo ah waxa weeye markii shaqa curyaamin aanu samayno oo ma garanaysaa to maalinka isniinta ama talaadada oo kale dadku waxay raacaan ba ay waayaan uber aan loo shaqaynaynin bolt aan loo shaqaynaynin free aan loo shaqaynaynin waxa weeye waa la isweydiinaya maxaa jira dadkan maxaa barobi ay tabanayaan marka horta arrintaas horta waan jeclaan lahaa horta unionka iyagu inay dhinaca horta bal hadda bal xaaladda lagu darsado qorshaha lagu darsado haddii iyadoo markaas aabka uu xiran yahay mudaharaad lagu daro kasii wanaagsan aad iyo aad bay u qurux badan tahay oo labadaba la isku jimciyo waxaan kaloo unionkaga aan kula talin lahaa inay dagaalka ku daraan dhinaca ma garanaysaa communicationka dhinaca mediaha sida brobe joornaalada kale wax lagu soo qoro oo kale idaacadaha oo kale tviyada oo kale meelahaas oo dhan kulligeed in ma garanaysaa lagu baahiyo tacadiyada ay kambaniyadani ay ku hayaan darawaliinta tacadiyada TFL-ku uu ku hayo darawaliinta sida xuquuqdooda ay u maqan tahay sida aan tixgelin aan loo siinin waxaas oo idil in ma garanaysaa idaacadaha iyo joornaaladii waxaas dhan lala wadaago oo lagu soo qoro waa jeclaan lahaa inaan aragno sidoo kale ayada laftigeedana waxaa kaloo iyadana habboonaan lahayd in lagu daro dhinaca ma garanaysa hadda dhinaca sharciyada waaba looyarada waaba leenahay waa fiicanahay maasha allah
laakiinse in lagu daro bal haddii ay suurtagal tahay dhinaca siyaasadda loobinka embiyo ma garanaysaa to meeyarka oo kale xilliga doorashadiisa la gaaro oo kale in aan challenge aanu ku samayn karno oonu isku dayi karno inaanu brobio soo jiidan karno meeyar kale oo balka noo dhaama inaanu ma garanaysaa to aanu halkaa culayska aan ka saari karno aan noqono dad brobio ma garanaysaa to lagu tashado oo dadka politicalka ay ku tashadaan oo walla halkaas niyo cod badan baa ku jira namre badan baa halkaas baa dhinacaa naga jira marka bal dhinacaa laftigeedana unionkayga bal waa hadday suurtagal tahay waa soo jeedin lahaa waanu ku boorinayaa marka waan wada salaamaya anu intaan soo jeedinaya waa intaa weeyaan dhammaantiina waa wada mahadsantihiin unionkana waa mahadsan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ka baxa جزاك الله محمد عبد العزيز وليست اوف موهايين waxaan kaa codsan lahaa maad aragtay inaad iyadoo qoran aad iisoo gudbiso point ya kabacdina horta waxaasoo dhan ku dara jirnaa xagga mediaha xagga maxay hayday siyaasadda xagga maad aragtay muxuu ahayey xidhitaanka first waxaan rabnaa horta marka ugu horeysan xoogga saarno sanadkan uber sidii aynu uga adkaan lahayn marka inagoo isticmaalayna wax kasta oo suurto gelinaya in aynu uber culays saarayno hadday tahay inaan ka xidhanno abka amaba ha ahaato wiigiiba mar amaba ha ahaato bishiiba mar amaba maxay haydee inagoo ka xidhanayna oo isku dayayna inaynu dirawallada oo dhan kicinno maaha memberskeena keliya haddii qof walba uu dhaqaaqo uu dirawallada kiciyo waxa weeyaan dirawallada dhan wada kicin karaynaa marka taas waynu ku tala jirnaa the best wayna waxa weeyaan uber lagaga adkaan karaya horta laba mid baa maxay ahayd uber lagu xanuujin karaya mid waa mudaharaad oo mudaharaadka marka ay tiro badan mudaharaadka dhowr nooc weeyaan mid aad tegayso aad hor istaagayso xafiiskiisa waxaan qaadan karnaa gawaadhideenaan qaadan karnaa markaasaan ku baarin garayn karnaa waddada maxay ahayd uber hortiisa waxaan samayn karnaa intaynu maxay ahayd nimaadnaynu ku wareegi karnaa maxay ahaydee inagoo lugaynayna ayaynu ku wareegi karnaa muxuu ahaye agagaarkiisa waxaasoo dhan waxa ay keenayaan in ay ka cadhoodaan muxuu ahaye local authority-ga iyo dadka businesska meesha ku leh haddaynu regulary waxyaalo noocaas oo kale aan samayno uber culays baa la saaraya waxaa la leeyahay problemkaaga xalliso waxaan anagu ma taakayna la leeyahay horta mudaharaadka isaga ujeedadiisa waa kaas iyo in mediaha la tuso oo maad aragtay muxuu ahaye darawladu siday u dhiban yihiin mise waxa weyn attentionka adduunkana kusoo jeedinaysa attentionka dadka kalena kusoo jeedinaysa attentionka maad aragtay jaarkiisana kusoo jeedinaysa mudaharaadka horta maxay ahaydee waa maxay ahaydee waxyaala loo sameeya waa kaas laakiin the best way oo uber lagaga adkaan karaya waxa weeye in laga xidho haddaan helno number wanaagsan oo wiigiiba maalin laga xidho waxa weeyaan xanuun badan buu dareemaya sababta maalintii laga xidhaba wuxuu luminayaa boqolaal kun ama millions buu luminayaa boqolaalkaa kun iyo millionska uu luminayo waxa kaga sii daran customerka uu luminayo oo unreliable oo loo arkayo tusaale waxaa idiin ah RMT undergroundka maalinta ay go'aansadaan oo unionkooda yidhaahdaan maanta ha shaqaynina waxa weeyaan waad aragtay London siday maad aragtay u fadhiisato wuxuu weeyaan horta hawlahan oo dhan Cabdiraxmaan maxay ahayd Maxamed Cabdicasiis uu sheegay oo dhan waa hawlo muhiim ah waana ku tala jirnaa inaanu qabanno tamartaydu meeshina gaarsiisaba arrinta muxuu ahaye dirawallada abuse lagu samaynayo dirawallada maxay arrintaas waxa weeyaan horta marka ugu horeysa cidda u qaabilsan oo rab inay tallaabo ka qaada waa booliiska waayo qof kale abuse ku sameeya boolisku waa inuu sharciga la tiigsadaa ninkaana ciqaabta uu leeyahay uu marayaa waxaan u baahannahay as union in maaragtay horta waxaanu samaynaa dirawallada waan support garaynaa waxaan isku daynaa inaanu meel kasta oo maaragtay u bannaan oo la mari karo in la maro laakiin waxaan u baahannahay oo kale inaynu actionno kala qaadano marka insha allah taasna sidii iyadana ku xalin lahayn maxay ahaydee waan isku dayin haddii ilaha yidhahdo marka maxamed cabdicasiis haddana su-aalaha qaar ka jawaabin
waad igu soo noqon kartaa waxaan u dhiibayaa aafi mar hore aafi waa laga horeeyaa waxaa ka horeeya ninka ay ugu qoran tahay iPhone 8 su-aashaada iyo magacaaga kabacdina su-aashaada ku xiji هلو السلام عليكم ورين بدن بسوقيون يو كويشن سؤالي بابطي كودي مركا ما شاء الله ما رنتي عاديات بردين سلام يا نبي شغل wanaagsan baa haysan darwaliinta Soomaaliduna waa badan yihiin laakiin se problemka maalintii wax ku dhacaan oo baydin yimaadaan inta kale tumanka grimo ogola kowdi maalinta laakiin se bay halkan ka ordaan oo lawyer iyo fatuudiyo lawyer ka quraaba oranaya dhowr boqolkeen magarat iyaga waxba u sameynay baday warqad yar xaraariqay magaras marka dhibaatada jirta horta hawl wanaagsan baa haysan laakiin se anigu waxaan oran lahaa sidii aad sheegtay unionno badan baa loo baahan yahay oo la isu tago waayo inta ku jirta halkan Soomaalida 100 kama badna baa laga yaabaa 150 daan gaarayba marka waxa wanaagsan iyadoo dad badan union badan oo kala oo different magaraysa hindidan waxaan ku dhahay Asiaanka dadka ajnabiga kale waxa soo dhan la isku ururiyo magaraysa qof walba waraaq loo dhiibo reportka qura lagu daadiyo saasay u fadhiyaan qaar baa reportka qura iska jooga Heathrow fadhiyaan meelaha bayban moogti marka taasina waa taa mid kalena waa ku weydiin lahaa runtiyo miyaw imtixaankii baan galay Englishkii marka waxay igu yidhaahdeen Englishkii waad ku baastay laakiin zeroogii kumaad baasin oo waxaad keentay 55 wax saasay igu yidhaahdeen marka October baan galay 16 of October last yearkii baan galay waxaan ku galay halkan Greenwich weli ima soo jawaabin email baan u diray oo ku soo jawaabina oo bay igu yidhaahdeen waxba ima soo jawaabin xaajira marka waxaad samaysaa maxaa haye in office-ka la soo hadal insha Allah annaga kula hadlayna insha Allah okay yeah marka wad haysta maxay hadeen numberka wad haysta office Soomaa ama aniga la soo hadal numberkayga haysato haddaad office-ka haysato la soo hadal yeah Ahmed haddaad haysato telefonkiisa yeah okay gorma free office Monday to Friday okay halkan hagni Soomaa ha but you don't need to come WhatsApp telephone soo diri kartaa okay ما شاء الله very good عاد بقى ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته okay ninka aafi la yiraahdo go ahead محمد السلام عليكم الحمد لله هذا ما مغشى سيفي يا عمكم والله سيفي يا عم marka hore waa ku maqlaayay waana wali maqal waa marka wax kale wax qaldan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Caafi Ibraahin dhammaan walaalaha ku jiro dhan waan salaamayaa Maxamed iyo teamkiisa ilaahay dartii noogu shaqeeyana waxaan leeyahay jazaakallahu khayr aljazaa ma in leeyahay mawduuciga markaan hore u galo horta su'aalo badan baan qabaa caawo Maxamed horta 2023 waxaad qabateen oo dhan warbixinta waan ku jiro waan maqlaayay darawaliintana kulay way maqlaayeen darawaliinta meesha ku jirtay waxa maqan iyo anagu dhan isku dan baanahay shaqo horta aad in ku mahad celiyaad qabateen oo lagu farxo haddii dad badanna ma ogo oo haddii meeshan baa lagu ogaan karaa ama qof iyo shakhsi baa ogaan karo waxa dambe haddii ilaahay noo lagu gaarsiiyay qaban lahaydeenna waad sheegteen wax fiican oo lagu farxo oo qof kastaba wax galmo u ahaa ama hore u soo qabateen dibna ilaahay idinkan ka wada qaban doonaa taas horta waan ka mahad celinayaa guud ahaan raggiina maamulka noo hayo mahadnaqaas kadib su'aasha horta haddii Uber laga darsada abka iyo haddii la mudaharaado iyo haddii union loo wada shaqeeyabo qof kastaba dantiisa ku jirto arrintan aan meesha ugu midaysanahay waxaana moodaa hawlna waxa weeye waa isla qabasho marka aan wada hadlayno waxaad moodaa inuu hadalka noo dhib yar yahay laakiin marka ficil la qabanayo inay macnaha ficilku xifulinayo ay yaraadaan aad baa u yaraadaan mudaharaadyada badan oo la qabtayna kulli dad yaraan baa aad looga cabaaday ani horta waxaan dhihi lahaa mar labaad bal horta kaadibadna waa loo gogol badiyaa mar labaad mudaharaad hala abaabulo oo markay holidayga ay tahay oo iskuullada ay xiran yihiin markaas lagu hagaajiyo
markaasna aanu isu wacdi gelin oo waxay la tahay hal mar aan ka qayb qaadano ninka Uber u shaqeynayay iyo ninka wax kale u shaqeynay ninkasta dhib ku waa taabta hadda oo waxa weeye ninkasta wax ogeyn ba hadda wax ogaaday horta arrintaas mar labaad hal abaabulo unionka horta intaasaan fikir ahaan ku dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa rag horaa ka hadlay su'aasha marka aniga aan qabo waxay tahay muhiimada warbixintaadii horta xadiis waxaa jira waxaad walaalka la jecel waxaad nafta la jecel walaalka la jeclow wax badan ood qabateen oo aan lawyer iyo maaragtay union qabmo wax kale aan qaban karin baad noo warbixisay waan ku faraxsanahay intii lagu guuleysana waxaan leenahay waa hambalyeynayna inta lagu guuleysanin waxaan leenahay wax ka khayr baa Allah inuu bedelo ama maaragtay markooday heli doonaan inta markaan ka gudbo warbixintaadi 2023 iyo 2024 in the future-ki labadaas warbixin ba rag badan oo SUG ku jiro oo dhibanayaal ah baa waxa qabadka aad warbixintana ku darin in wax loo qaban doonana aanu ku darin oo ah dadka abka Uber ee ka xiran tahay dad badan oo waxa ku jira meeshaan aniga ka mid ahay Uber ka xiran tahay adiga anigana shakhsi ahaan mar baan wada hadalno oo January baan bilaabaya balanteen ahayd hadda warbixintaada horta inaad hilmaantay inaan naloo maqnayn adaa kala cadeyn doono oo horta taas su'aal warbixintaada hore iyo dambe kuma jirin taas horta warbixinteeda waa laga rabaa oo waaragta dadka waan ku dhageysanaynay oo dad dhibanayaal ah oo SUG ku jiro darawaliinta kamid aan nahay taa warbixinteeda horta aday kugu soo noqonaysaa oo waa laga sugayaa markaan ka sii gudbo hore u sii guda galo walaalayaal oo darawaliinta meeshan ku jiro maanta ninkii ab u shaqeynayo biriba waxa laga yaabaa in laga xirto ninka dhiban oo anaga naga mid ahana iyo ninka shaqeynayana waxa weeye waa isku mid dad waxa jira marka badan oo ku jira meeshan oo Uber ka xiratay ama sax looga xiro ama khalad looga xiro haddii la isqabsadana muddaciyo muddacalayhi ama adaa gar heli ama ayada ka gar heli laakiin waxaan anagu dhibano u nahay in loo dacwoodo oo lawyer loo qabto unionkana maaragtay waan u dacwoonay kulli hawshu waan ku jirnaabay maaragtay muddo dheer sugaynay mar baan nala soo wadiyo phone iyo wax information nagala baahnaa wax dambe oo nagu soo warceliyana maana helin hadda warbixintii Maxamed markaan maqlayna hadda xoogaa markaan Ilaahay ka boqo waan iyo xumaaday oo hadda warbixintii raggaas jirana nama xusin waxba loo qaban doonana nagu lama xusin waxba hore lagu qabto nagu lama xusin marka haddii uu dhigma kaaga jawaabaan yabo chance daba kaaga jawaab ayo waa sax weeye maxay hayday hadallada sheegto dhan waa hadallo gar ah waana sax wara kaaga jawaabaya soo dhamayso bas thank you marka waxaan u baahanahay mana ahan anaga bas ma ahan oo ninkii maanta ayna haysanin bribe ku dhici kartaa de waxaan u baahanahay dad walaalihiin ah oo Uber si khaldan oo isay taboonayaan ay ka gardaran tahay una baahan in loo hadlaanahay hadda waxaan garabsaag uga baahanahay ma ahan Maxamed bas iyo xafiiske dhammaan walaalaha ku jiro oo unionka ku jiro oo darawaliinta ayaan cod iyo calaf diyaar oolan ayaa ka codsanaynaa hadda unionkana waxaan doonaynaa in loo qabto waxaan doonaynaa waa lawyer nin tooxsan waxba laguma qaban karo qof kastana wada jirka wax lagu qabtaa oo qof kastoo hadlaba saas u hadlay hadda wada jirka markaan saas wada meeysanahay inta waxaa tiri 34 qof aan maxkamad la aadnaa tiri oo Uber iyo xaalkeeda waa ku faraxsanahay oo anagoo kale laakiin anagana waxaan doonaynaa in hawshana loo galo de rag badan oo meeshan ku jiro ama hadli doono ama aan hadda ku jirin baa iska suuragala oo nooca aniga oo kala ah Maxamed marka kiiskaas haddaan hore u gelin walaalow haddii naloo geli karo in naloo galo oo arrintaas nagala qoosiyaan doonaynaa oo lawyerna loo qabto haddii de nidaamka unionka u dhisan yahay oo darawaliinta u dhisanta qofka Uber ka xir warbixintaada waxaa ku jirtay de waan u dacwoonay 34 qof baan maxkamad la aadnay ma horta afiyo ما يسوق محي هذا سوق بجبيس ما درت وان كو قل دونه كو شيء ومحي هذا أرتاس محي هذا إن وربان كاجا هايا مركز إن شاء الله سوق بجبيه مركز عقوق بجبينا محمدو هدي هوش الله قالوا إن أنا جوليستو أم هبل جوليست قسم معهن هو مدعي عليه إن لو جوليسنا وصورة قال إن جوليسنا وصورة قال أم جوليسنا مركز كيس ده إن لو قالن ولا لو أنا قدنينا وأنا عصنينا haddaan la geli karin haddii inaan sugin oo naloo cadeeyo iyadana waa farcadi oo wax loo baahan yahay cabashadana waa taa
waxaana tirsanaynaa in muddo dheer aan meesha ku jirnay oo hawshaas aan naloo gelinna dhalishu ma fiicina xoogaha raggana saasna waas yara leenahay laakiin waxa uma qaban dhaliil waxa uma taraysay walaalo arrintaasoo cabashaa yaan dhammaan unionka u sheegaynaa dad badan oo darawalin oo abka ka xiran yaana ka mid ahay intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu okay jazaak allahu khayr su-aashadan kaaga jawaabaya qolada maxay ahayd uber ay ka xidhateen waxa weeyaan horta waxaa jira qolo si permanent loo deactivation loogu sameeyo caafiga ku jiro qoladaas waxa weeyaan horta marka ugu horeysa unionka marka waxaan samaynaa warqad baan u qornaa maxay ahayd uber oo aan demand garanayn in maxay ahayd loo furo 50% meelahaas waa ku guulaysanaa haddii annaga markaas ay noo suuroobi weydo taas waxaan la kaashanaa muxuu ahay MB-giisana asagana waa 50%. Sometimes way suurtoobo, sometimes nama suurtoobo. Haddii ay suurtagal tahay lawyer baan u qabanaa. Lawyerka laftiisa mararka qaarkood way suurtoobaan, mararka qaarkood ma suurtoobo. Marka waxaa jira guruubiyo whole process la soo maray oo aan weli hayay account-koodii aan dib loogu furay. marka waxaan bilownay adiga sanadkii haddan soo dhaafay kala barkiisii waxaan bilownay horta waxaan raadinaynay ways baan raadinaynay oo aanu members ku caawino oo ah qoladan maaragtay deactivationka lagu sameeyey oo uu burdiiday inuu soo furo marka waxaanu helnay ama lawyerkaygu wuxuu noo sheegay uu nagu yidhi waxaan challenge garaynaynaa Uber sababta aan ku challenge garaynayna waxa weeyaan maadaama Uber uu ka xidhay TFL-na ay license u cusboonaysiisay miis waxa weeyaan TFL waxay ogaatay raggan inay yihiin fit and proper oo ay darawal noqon karaan oo meesha wadi karayaan oo ay maxay ka shaqayn karayaan muxuu ahay as private hire marka sababta uu Uber ugu diidayo inaan ku challenge garayna maxkamadda marka arrintaasaan ku jirnay arrintuna ma aha muxuu ahay wax oo maaragtay ama maalin ama laba maalmood ku soo dhamaanaysa group muxuu ahaayay badan oo maxay ahayd inaga member inaga ah oo permanent looga xidhay baa jirta processkaas waanu bilownay lawyerka waanu la soo hadalnay waanu la soo heshiinay wixii uu nooga baahnaa uu noo soo sheegay kadibna shaqadii waanu qabanay December baanu bilownay December markaanu bilownay muxuu ahaayay adiga Christmaskii baa naga soo galay waxay ahayd waxa weeyaan in ma aha kaliya dadka maaragtay guruubyada ku jira dadka laga xidhay waxaanu haysanaa members boqolaal ah oo ciidda ka badan baan haysanaa oo ayagana permanent looga xidhay kulligoodna dhiban marka aafiyo adi ma jeclaan lahayd maanta in lagaa boodo waa maya marka walaaladeen kalena inaan ka boodno ma jeclin saas awgeed unionku wuxuu ku jiray in uu maaragtay la xidhiidho qof kasta oo Uber uu deactivation ku sameeyey welina accountkiisa uu xidhan yahay hawl baanu galnay telefoonaan dirnay boqolaal telefoon baanu dirnay emaillaan dirnay whatsapp yaan dirnay waxa weeyaan deadline baanu siinay fooman baanu ka soo buuxinay waxaanu soo ururinay ilaa adiga 40 qof oo uu permanent uga xidhan yahay 40kii qof waraaqihii maxay ahayd foomamkii iyo wixii aanu ka rabnay iyo details oo dhow noo soo gudbiyeen annaguna lawyerkaanu gudbinay marka arrintaas hadda unionka way dhaaftay miiska lawyerka ayay saaran tahay marka asagaan ka warsugaynaa waa faceka ugu horeeya weeyaan faceka ugu horeeya waxa weeyaan waa group action weeyaan group action waa taqaanaan maaha qof keliya maaha waa dad group ah oo ayagoo wada jira loo doodayo weeyaan marka groupku marka maaragtay la wada marka dadku markay badan yihiinba kayskuna wuu sii adkaanaya baqdinta Uber galaysaana way sii badanaysaa waxa weeyaan kayskaas wuxuu yaalaa miiska oo lawyerku saaran yahay annaga hadda wuuna dhaafay waxaan weliba ka codsanaynaa dadka aan weli nala soo xidhiidhan oo Uber uu si permanentiya uga xidhay inay nala soo xidhiidhaan adiga sida ugu dhaqsaha badan si aan uga dabageyno ayaanu jeclaan lahay marka aafi waxaan ku leeyahay kayskaaga waa la galay waanu gudbinay halkaasaan xal ku maraya marka faceka koowaad waxa weeyaan marka ugu horeysa lawyerka ayaa asaga ayaa warqad u qoraya
ama anaga magaca union ku isticmaalaya anaga maxay ahayd markaas through the union kan ugu qorayna anagoo demand garaynayn raggan in loo soo furo waxa weeye marka ugu horreysa waa inaad taad maxkamad tegin waxa weeye waa inaad iyaga ku codsataa wixii adiga aad ka rabtay haddii loo soo furo raggaas de kaysku wuu xidhmay waxay noqonaysaa oo marka qolada kale oo markaas muxuu ahaye timaada in maaragtay iyagana maaragtay muxuu ahaye in sidoo kale loo sameeyo hadday diidaan markaas waxaan rabnaa inaan challenge garayno oo aan markaas barristers cusub intaanu qabsanno aanu challenge garayno uber oo aan maxkamadda ku challenge garayno oo aan leenahay license authority-gii baa raggan u ogolaatay inay maaragtay ku shaqeeyaan private hire adiga maxaa tahay ugu diiday waxaan rabnaa inuu markaas arrintaa uu ka jawaabo lawyer su-aashaad in ka jawaabo afiyo maxaa kugu dhiman unmute iska saar haddee wax kale kuu dhiman yihiin sababtoo ah waxoogaa waa dhibanta ku arkayaa marka saas awgeed waxa weeye waxaan rabaa inaan maaragtay si fiican kaaga jawaabo wixii kaloo su-aalo maaragtay aad qabto okay waxaan u malaynayaa technical problem baa haysta anyway casekaas waxa weeyaan hadda lawyer ku yaala union kugu dhaafay marka insha allah waxaan ka warsugaynaa marka lawyerku asagana maaragtay tallaabada uu qaado iyo waxay uber kusoo jawaabaan markay uber ay soo jawaabaan ama soo jawaabi waayaan muddo markaasaan actionka labaadna qaadi doon haddii ilaha yidhahdo halkaasu xaalku maraya Abdul go ahead Abdul okay Abdul waxaan u malaynayaa technical difficulties baa istaan u malaynayaa Cabrole go ahead السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأي سلام الأمان مملكة إيه أضياشة السلام عليكم مملكة كجرة Abdul sug xir sug walaal Cabrole marka masada aad ku xigisaa Cabrole go ahead محمد إن أضياشة هرت اللقبة وحي ومارتي إن مهدنقة وجودي حقيسة كنتي شغلي وناك سند مارت سوقبتين هذا اللي كيما علينا إن أنيقا إن وحنربي إن مارتي إن كهالله وأنا سلاي هاي إن هو ولا رجابي إن وجورت وهذا الدرس عندي إن members in maaragtay members la raadiyo gurubyada aan maaragtay laga hadlo oo maaragtay erboorada oo kaleeto iyo wax la qaybiyo si more loo helo maaragtay unionka dad badan oo aan ka mid ahayn oo unionka jiro wacyigelinta sababo maaragtay waa baryahan waa yaraatay waxaan u malaynayaa waa la buuxsadaan u malaynayaa midda xigta waxaa marka ugu horeyso in communicationka ka dhexeeya memberska iyo guddiga xoogo very low waaye maaragtay waxaan arkay hadda kahor dhowr mar dad badan oo qolalka ka hadlayo oo maaragtay guddiga information waa lacag baa iska bixinaa laakiin information ma helnay waxaas ku doodaya informationka caawa aad bixiseen waxaan jeclaan lahaa minutes in lagu daro caawada aan ka hadasheen in maaragtay community laga dhigo asoo documentation qabadkii uu qabtay unionka dad kale la wadaago loo diro maaragtay emailadooda loogu diro wax qabadka si uu ogaadaan birin aysan ka murtami karin isdhiin karin oo maaragtay unionka noo qabtay in marka waxaan ku buurinaa maamulka in maaragtay dadka loogu diro qof waliba emailkiisa loogu diro si uu u ogaado waxa qabadka uu qabanayo maaragtay unionka uu qabanayo iyo in maaragtay wacyigelintii dadka in dib loo celiyo oo loo soo celiyo oo dadkii mitigeeda maaragtay dad badan oo aanan ka mid ahayn unionka oo aad u badan oo maaragtay ayaa jirto dhalinyaro badana ayagana la wacyigeliyo oo maaragtay kaararkii la qaybin jiro oo kaleeto la qaybiyo eerboorada iyo meelaha la geeyo ayadana aad baan maaragtay taas u xoojinayaa aad baan u mahadsantihiin jazaaka allahu khayr shaqada aad noo haysaan runtii 4 sano ka hor meesha aan joognay iyo 3 sano ka hor iyo 2 sano ka hor iyo maaragtay maanta meesha aan joogno aad bay u kala fog tahay marka ilaahay idin guuleeyo walaalaha kalena dhammaantiin aad baan idin salaamaya insha allah taas baan rabay inaan idinku booriyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaaka allahu khayr Cabrole absolutely waa saa sheegtay weeyaan memberska
muxuu ahayey qabanqaabadii lagu jiray horta way yaraatay berigii hore waxaad arkaysay maalin walba dad baa 2 qof 3 qof keeni jiray hadda beryahan dambe waxaad u malaysaa inay aad bay u yaraatay runta marka la rabo waxaan u baahannahay haddaan rabno inaynu maaragtay iska celinno ab kombaniyada iyo TFL iyo cid walbo muxuu ahayey dhib inagu haysa waxaan u baahannahay memberskeenu inuu bato memberku hadduu bato powerkeenu wuu badanaya marka waxa weeyaan arrintaas uu sheegay Cabrol waa arrin runtii loo baahan yahay in laga hawlgalo arrinta kale communicationkana insha Allah waan ku hawlgalaynaa waxqabadka maaragtay email baan ugu diri doonaa meelahaas waxaan soo dhigi doonaa maxay ahayd qolalkaan soo dhigi doonaa marka waan ku liidanaa runtii waxaanu qabanay inaanu sheegno marka hadda wixii ka dambeeya insha Allah memberska waan la socodsiin doonaa wax kasta oo la qabto haddii ilaahay yidhaahdo Abdul, go ahead. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين السلامي يونين كميل كستا جوجتان منبرك كل والسلامي يعني جو waxaan qabaa tala soo jeedin weeye su'aal ma qabo haday suuragal tahay waa tan loo baahan yahay tala soo jeedinteedu waxa weeye Uber wixii aan kula heshiinay waxay ahayd markaan wadanka soo galeynay Uber ay naqaadanaysay dadna 15 bay kula heshiisay percenti dadna 25 haddana waxay qaadataa lacag aad u tiro badan oo markaad qofka weydiisid intaad qaadatid iyo intay qaataan sometimes waxa badan intay qaataan marka TFL baa waxay siisay licensing oo noo dhaxaysa marka suuragal ma tahay in TFL lala xiriiro oo lala fariisto oo loo sheego arrinta iyo dhibaatada haysa Uber nagu hayso iyo ballanbaxdii ay nagu samaysay ma suuragal ma tahay arrintaas in lala fariisto oo loo sheego TFL okay marka anigu waxaan qabaa in lala fariisto haday suuragal tahay arrintaasna yani maadaama ay naga qaadato lacagan caadi ahayn yani TFL iyaga noo dhaxeeya iyaga licensing siiyay been bayna noo sheegay waan xatuuganimay nagu sameeyay fraud way waxood marka in lala hadlo oo lala fariisto oo arrintii laga dhaadhacsiyo baan u qabaa ama mudaharaadna lagu sameeyo oo arrintaas laga hadlayo waana mahadsantiin meel kasta aad joogtaan assalaamu calaykum waa arrin meesha ku jirta weeyaan TFL waxay ku mamarsotaa ay tiraahdaa madarta anna waxaan nahay safety regulatory bay yiraahdaan markaad la hadasho waxay kula anaga safety-gaan u qaabilsanahay dhinac marka laga eego tan hadda inaga ayna haysataaba waa the biggest safety problem weeyaan maxay ku tahay darawalkii marka la yiraahdo darawalkii marka lagu qasbo inuu shaqeeyo muxuu hayay 10 saacadood 15 saacadood maalintii si uu biilka u bixiyo khatarta ka badan xagee joogta marka waxa weeyaan insha Allah waan la xiriirinaa TFL-na ma aragtay runtii inta badan way dhageysataa dadka darawalada way dhageystaan sababtu waxa weeyaan cid la hadasha TFL oo ula hadasha private hire-ka runta marka la hadlo way yaryihiin aad bay u yaryihiin agenda kale wada haystaa maxay haydee ina unionada kale cid laakiin si daacad ah ula hadlaysa TFL ayada oo runtii ka hadlaya problemka darawalada waa UK PhD union kali kuwa kale oo dhan agenda kale iyo meelo kale iyo waxyaalo kale ay ka leeyihiin marka waxa weeyaan wixii noo suurtagal ah oo aan xagga TFL ka soo dhamaysan karana waxba kama hakarnayno waanu galaynaa muxuu ahaaye wixii kaloo laakiin inaga aynu xoogeena ku dhamaysanayno Uber ma aragtay aynu shaqo ka qabanaynana taasna waa mid inaga inoo taala iyo memberska Maxamed Hassan Maxamed go ahead محمد حسن محمد حسن محمد go ahead محمد حسن محمد technical difficulties one more go ahead محمد markale waan ku siinayaa unmute
injineer xasan laguma maqlayo السلام عليكم ملي مقلا si fiican baa lagu maqlay hadda waan idin salaamay dhammaantiin waxaan ugu mahad celinayaa guddiga oo Maxamed oo hawshan soo qabanqaabiya aad baad u mahadsantihiin dhammaan guddiga unionka ragga maaragtay voluntary ku shaqeeyo memberska oo ka soo qayb gala caawa aad baad u mahadsantihiin waxaan daba socdaa arrintii Maxamed Cabdicasiis oo ka hadlayay oo customka la qaadayo oo darawalka abuse gareynayo TFL-ka waxaa noo sheegtay sticker waxay soo saarayaan oo memberska haddii darawalka aysan ku farxin ay maaragtay dacwey karaan marka stickerkaas haddii ay ku soo dari karaan TFL-ka in maaragtay darawalka oo maaragtay si wanaagsan oo akhlaaq ah oo maaragtay gaariga u isticmaalo markay stickerkaas akhriyaan sida stickeradii hadda covid-ka oo kale dadka waxa waaye aad bay u baqi jireen markii sticker uu kugu dhegan yahay face masker waxay ku leeyihiin iyadoo la dhaafay oo loo baahnay waxay ku leeyihiin ma inaa xirtaa marka akhlaaq bay ay maaragtay ay u yeelaysaa marka haddii aad TFL-ka arrintaas kala hadashiin maadaama ay stickerkaas soo sameynayaan inay ku soo daraan memberska dadka maaragtay customka la qaadayo inay si akhlaaq ay maaragtay u fadhiyaan baabuurka arrintan kale oo Cabral ka dhawaajiyana waa la misgareeyay unionka waxqabadkiisa in maaragtay lala wadaago marka arrintaas haddii lala wadaago way fiicnaan lahayd wax badan ayaa maaragtay mararka qaarkood la dhahaa unionka muxuu qabtaa muxuu sameeyaa marka caawa wax badan baa ka dhawaajisay aad baad ugu mahadsan tahay halkaas laga sii wado members badan baa loo baahan yahay qof walba mas'uul baa ka saaran in uu gaarsiiyo una sheego caawa wixiina loo soo bandhigay in unionka uu wax qabad badan uu sameeyo dad badan la caawiyo marka haddii qof walbaba uu qof keeno 2 jibaar ama 3 jibaar ama 4 jibaar bay noqonaysaa marka waan ka baxay waa mahadsan tahay Maxamed جزاك الله حسن عثمان و very good idea inaan ma aragtay aan la xiriirno TFL aan raacno stickerka aad soo sameynaysaa stickerka waxay sameynayaan next year July ayaa compulsory laga dhigayaa marka inta ka horeysa waxay yiraahdeen stickerkan soo design gareynayna kulli company wuxuu u dirayaan marka in imika la maxay hayday la socodsiyo la yiraahdo ku soo dara warning oo diro maxay hayday riderka la warning gareyn uu leeyahay muxuu hayay no abuse oo kale waa arrin aad muhiim ah marka insha Allah taasna waxay hayday liiska ku darsanayna haddii la yiraahdo waa sida Xasan iyo Cabral ay sheegeen akhyaaray waynu gaabinay xagga ma aragtay raadinta memberka marka uu qof walba inaga mid ah waa mas'uuliyad saaran marka hala dadaalo go ahead maxay hayday Maxamed Xasan go ahead waxaad karaysaa laguma maqlayo waa mute bas gelisaad ka saar kamarada kuu furan laakiin mikrofoonka kaa xigan mute-ka iska saar waa okay inta uu Maxamed حسن ولا رفنايو والله ما هذا اللي مقلع ها واحد السلام عليكم عادي هاد ما يدين سلام يا دمان خيارته وانا ما هدسنتين وحقبت كافي عنا يا قبرتين markii hore waxba lama aanu socon laakiin hadda markii aad soo bandhigteen waa arrin fiican weeye meel fiican bay maraysaa anigu waxaan ku darsan lahaa ra'yi baan ku darsan lahaa nimayahow
dee dhibanayaal kolley waxaynu u nahay uber baynu u nahay waxaan arkay markaa intii anigu iminka 8 sanaan uber u shaqaynayay marka waxyaabaha aan arkay ilaa iminka socda waxaa ka mid ah uber inay iska xidhato aabka adigoo shaqadii ku jira inay iskaba xidhataba oo tiraahdo hadhow markaad la xidhiidhada tiraahdo qof baa ku soo dacweeyey moogta marka anigu waxaan odhan lahaa uber ha lala xisaabtamo oo ha la yidhaahdo qofka darawalku iyo qofkan customerka labaduba xuquuq bay leeyihin iyadoo aan waxba lagu weydiin in aabkii la iska xidho oo rag badan sidaa looga wada xidhay dee xaq maaha marka waxaan odhan lahaa looyarka taa laftarkeeda ha lagu daro in uber aanay aabka iska xidhan at least xitaa qofka ay notice siiyaan waanu kaa xidhanaynaa waxaasaa dhacay yacni qofkii dee inaan laga dhigin laga dem hal mar qura laga sii qofkii lala soo xidhiidho waa laga gardaraan karaa isagu gardaraan karaa labadaba way dhici kartaa laakiin dee in qofkii aan laga xidhane la weydiiyo horta waxaa la yidhahdaa waxaasaa samaysay waanu kaa xidhan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas aan anugu kusoo koobayaa wajazaakum allahu khayran جزاك الله محمد وأرين runtii meesha ku jirta weeyaan waxa weeyaan marka ugu horeysa waxa weeye waa inay investigation kooda samaystaan intaanay darawalka ka xirin ayagu waxay leeyihiin waan kaa xidhaynaa marka hore kadibna markaasaan investigation samaynaynaa haddii aan wax soo weynana waanu kuu furaynaa haddaan wax soo helnana barminti baan kaaga xidhanayna marka cadaalad maaha arrintaas arrin cadaalada maaha wax alla wixii awoodeeda ah oo aan ka qaban karnana waxba kalama habeeno laakiin waxaan u baahannahay idinka supportigiinaan u baahannahay maalinta laydin yimaado la yidhaahdo mudaharaad baynu samaynaynaa waa inaad ready tihiin maalinta laydin yimaado la yidhaahdo xidha waa inaad xidhataan marka insha allah inagoo wada jirnaa waan ka guulaysanayna Afi, go ahead. Technical difficulties baan malaynayaa Abdullah Mawla baan ku xijinayaa Afi, go ahead. marka kole dhaliishana kole anagu waan leenahay oo markii naloo baahda badanaa lama helo marka wacyigelintu waxa weeye xagga hala wada shaqeeyo muhiimadu waa intaas warbixintaadana waa kaa mahadcelinayaa warkii anoo wato iga yaro gaadaabay oo warbixinta hadda ay siiso horta waa ku qancay oo maaragtay inaan wixii la gudbiyey laakiin anaga maanu ogeyn marka horta saas u yara arag naftigaada isfaan laan baa ka dhacday meesha oo adigana marka hore kuma soo daray anagana waa naloo maqnaa ragga naloo maqnaa ka mid ahayn marka wixii hadda kolley waxaan kugu raacin lahaa bisa inaad markii meesha wax marayaan aad nala soo socodsiisaan oo guud ahaan nagu soo gudbisaan si anagana in naloo maqayan u ogaano taa waa intaa midda kale su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay stiikarka 26 oo macnaha iyo dheydkiisa ku egi aad tiri filigu yiri cilmi stiikar macnaha TFL-ka soo saareen oo criminal jega oo mise waa wax waran oo waraaq gaari lagu dhajinayo mise wax stiikar waa ma TFL-ka ku dhajinayso masaada ku dhagsanayo meeshaas iga rajaal bixin insha Allah saddex sharciyo cusub ayaa soo socda mid waa bishan hadda soo bilaabanayso bilaabmaya waxa weeye waa DSP waa criminal record ka madarata qoladan madarata DSP maxay yahay DPS service updates waa inaad iska qortaa qoladaas waa mid weeyaan taas oo marka hore la xasuusto midna waxay hirgelaysaa July oo waxa weeye waa overseas criminalka weeyaan midna waxa weeyaan sticker gaariga lagu dhajinayo sida madarata CCTV maxay yahay kan ku yaalo kale sticker bay soo design gareynayaan waxay rabaan inay gaariga meel kaga dhajiyaan marka information baa ku qoran ay ka mid yihiin sidii ay customerku maaragtay ay complain kaaga samayn lahaayeen oo ugu diri lahaayeen TFL marka waa taa uu Xasan Cusman hadda sheegayo lahaa aynu aan wargelino si ay stickerka ugu daraan warning ah in dirawaladana maaragtay aanay ruuxayay abuse ku samayn karin marka taas weeyaan muxuu hayay in Afio midda kale warbixintani waxay ahayd 2024 ka ahayd marka shaki baa ku jiray ma 23 baan ku daraa ma 24 baan ku daraa marka saasaan ku jiray laakiin warbixinta waxaan rabay inaan idin soo gudbiyo oo aan maaragtay idinku soo gudbiyo qoralka
iyo maaragtay emailada iyo inaad kusoo gudbiyaan rabay iminkana waabay kasii fiican tahayba haddii maaragtay laydin sheego marka maysan ahayn maaragtay wax oo maaragtay waxay ku jirtay in maaragtay xaggee baan raaciya sababtoo ah waxay ahayd arrintan waxay dhacday January 2024 bay ahayd waxyaalo badan oo January 2024 dhacay oo aanan kusoo darin baa jiro insha Allah aan ku xijin doono maxay ahayd in mustaqbal Abdul go ahead السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملي مقلع سبحان نور الدنيا ونيا في شيء حوجا بانرويا بنقشي وحن يشيء وحنا كجيران السؤال شعافي جوابت هذه وكوقا عهرتها لكن وحن دبرنيجا يا يشيء أنا قد لبنا نهاي أفراتك ساعة وحجعلنا هاي إنا وربحنت عن لصعنا يهار ماشي أو مرة يلويرك أو رياكشنك أو سمينايو taas ma la socon karnaa su'aashaydu waa taas seesu heli karnaa qabaar absolute ana idin soo gudbinaya maalo meesha marayso qolalka idin ka soo gudbinaya amaba gaargaar baan idinla soo xiriiri doonaa waxaa laga yaabaa in lawyerku toos idinla soo xiriiro laakiin contact point waa UK PhD laakiin anaga progresska ma hadda meeshay marayso horta marka waa facekii koowaad weeyaan marka wuxuu samaynayaa wixiisu isku hagaajisanaya kulley argumentiisi wixiisa dhan buu samaysanayaa kabacdina Uber buu la xidhiidhaya kabacdina Uber markuu la xidhiidho mudduu siinaya adiga I don't know might be weeks might be I don't know how much intuu siin doono haddii marka usoo jawaabi waayaan amaba ay reaction soo siin waayaan markaasba waxaan bilaabaynaa muxuu hayay facekii kale markuu faceku isbedelayo markaasoo kale waa idin soo socotiin kara waxaan oran karnaa hadda saasay saasaa wax u dhaceen halkaasay xaalku maraysaa xaaladdan halkaas loo gudbaaya marka insha Allah waa idin socodsiinaa qasab waa idin socodsiinaya waxba ka warwarina taas fadlan taas noogu soo dadaalo sababtoo ah waxa waaye shakiyaaba na galay waxa isdhahnay martiyaatihiin oo baahaya idin haysa digsi faaruqa dabladiin saaray wax ka soo bixi doona Allahu aclam horta mid idinku eg niyadiina mid gashta haye UK PhD Union wixii awoodeeda ah idinkama hakranayso ma fahamtay waa ku qanacsanahay marka wixii annaga aan qaban kari weyno unbaa idinka maqan laakiin wax aan qaban karayno oo la idinka hakranayo horta ma jiro taas horta marka ku horeysa ku niyad samaada sababtoo ah unionkan waa unionkini idinka ayaa la idin sameeyey idinka ayaa laydinku talagalay in debka idin haysta la idinkaga saaro marka taas horta marka ugu horeysa ogaada insha Allah wixii update oo soo kordhana waa idila socodsiinayna ma annagana hadii waxaan ognahay waxaad noo qaban kartaan inaan naga hakranaynin ba annagana saasaan aaminsanahay oo rag intuhumayo ma nihin marka waa wada shaqayn laakiin in update-ka siinaa muhiim ah wixina la guda galo haddii la dacwoodana qasab ma ahan in loo wada furo qasabna ma in loo wada diido marka waa in hawshii in la geli karo la isku qaamo wixii ka soo baxana ilaahna waa ku qanacsana annagana haddii dad wala shaqaynayo walaalaho oo iska darawlinan wadanahay oo meesha tuhun ma jiro marka hawshii in la bilaabanayo ku qanacsana warkaadu mana beeninayno kamana shakisino waxa weeye waxaan wada shaqaysanayno waa adiga iyo aniga iyo mid lamid oo kala weeye marka intaas yartaa inaan helo intana waa helnay wixii ka soo baxana ilaahna tala saarayna waa sugaynaa bo insha Allah haddii ilaahay absolutely waa saa sheegtay absolutely any more question waxa weeyaan saacadda sidee maraysaa saacadda ugu tala galnay waxaad siinaysaa buu waa 9 7 bayna bilow ma isfasaxnaa sabanka adiga la iska bilaabay markay bilaabanaysay baanrooy nagu bilaabato baash malidinka dambeeyey ima howlo kale ma ka socdaan badhayna hadda ninkii su'aal qaba weli ha loo sii fasaxo waxaan u malaynaa cid gacanta taagtay ma jirto laakiin waa I will give you 5 minutes qof hadduu hayo su'aalu ka aanu ka seexanayn anaga waxaa muhiim noo ah qabaarka in la socodsiiyo taasaa muhiim noo ah ما تاس أنا idin ballan qaadan إن شاء الله taas ka hadashaa ku noqonin waa ka hadashaa taas إن شاء الله okay marka إن شاء الله aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidaad uga soo sida sharafta leh uga soo qayb gasheen sida sharafta leh oo aad maaragtay opinionkiina aad u soo dhiibateen sida sharafta leh aad u soo dhiibateen maaragtay muxuu ahay cabashadiina waxa weeyaan cabasho ka soo qabtaan
ama aniga ii imaada ama guddiga u imaada guddiga unionka ama aniga baad ila imaan karaysaan haddii aniga aad aragtaan inaanan maaragtay waxaas aan xallin waaya ma sida aragteen aan u xallin waayey waxa weeye guddiga unionka usoo bandhiga guddi baa jirta oo aan hadda samaynayno oo aan ugu talagalnay cabashooyinka marka insha allah muxuu ahaaye communicationkeena inuu kasii fiicnaan doona cumar faaruq go ahead waxaan rabay inaan idin mahadceliyo dhammaan asxaabta kasoo qaybgashay si wanaagsan buu u dhacay shirka su-aalihiina dee si fiican baa ugu jawaabtay qaar laha kusii maxamed waa mahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinaynaa mar walba maaragtay aad la garab taagan tahay walaalaha marka waa salaan iyo maaragtay inaan idin hambaleyo oon si wanaagsan aw u socdo shirka iyo waa mahadsantihin jazaaka allah cumar faaruq okay waa maxay ahayd hadbo insha allah cumar faaruq aad baad umahadsan tahay kulligiin aad baad umahadsan tihiin sida fiican ood uga soo qayb gasheen waxaanad ogaataan miitinadan oo kale waxaan qabsanaynaa arbacada ugu dambeysa ee bil walba arbacada ugu dambeysa waxa weyn waa drivers meeting marka insha allah su'aalahaaga soo diyaarso khayare waxaad ogaataan unionka guddiga keliya waxba ma qaban karayaan iskaashato ayaynu nahay waxa weeyaan waa inaynu kulligeen wax wada qabsanno oo aynu unionkeena wada dhisanno oo aynu unionkeena wada ilaashanno oo aynu maaragtay hal meel kulligeen uga soo wada jeedsanno cabdullah gacanta taage go ahead cabdul marka hawshan waa hawl kulligeen inoo taalla maxamed keligii wax ma qaban karo guddiga kulligood wax ma qaban karayaan fari fool ma dhaqday soomaalida ku mahmaala fari fool ma dhaqdo waxa weeyaan waa inaynu memberskeena inagu badsanaa waa inaynu campaignka bilownaa oo aynu eribord walba tagnaa oo aynu suuq meel walbo aynu darawal ka helanaynu tagnaa waa inaynu laba laabnaa saddex laabnaa maaragtay membershipkeena markay membersku inoo bataan awoodeennuna way sii badanaysaa marka waa idin salaamayaa cabdul difficulties baa haystaan u malaynayaa waa idin salaamaya kulligiin halkaas baynu kusoo gabagabaynaynaa caawa maxamedow su-aasha u dambeysa waxaa weeye unionka horta waa nin hore ugu jiray iyo nin soo geli doono iyo nin dhexda ka soo galay weeyo marka dadka hadda unionka macnaha u shaqeeya ama ka warhayana xagaa 40% inay yihiin oo ka warhaya inta kale in cusub yihiin baa suuragala halka su-aashan ku leeyahay waxaa weeyo inaad maaragtay qaladkan hadda darwalinta ay ku jiraan lagu soo daro wiig kaste unionka say ku soo bilowdeen sharciga ku shaqeeyaan update-kay qabanayaan oo hal mar cod aad diyaariseen oo wiig kastaba lagu soo celiyo sidii qofka cusub oo soo galo uu u dhegaysto oo la socdo nin badan baa macnaha qadadka waxaa laga dhacaa dadka aamusan may hadlaan haddii meel lagu midaysan yahay qolka oo qofkan uu soo galo cusub yahay dadku u turayaa qolku u turayaa nidaamku u turayaa ilaa qofka hawl waxaa la yidhi soomaalidu nin hawluun ogeyn indhuhu ka tuuraa macnaha inaad ku soo duubtaan nidaamka hadda ka hor sheekada waxaan maqlay unionka labay ahaayeen way badnaayeen way kala jabeen ayaa kala jabay ma soomaali baa kala jabtay ma union gaalaa la kala baxay nidaamka dad badan oo waxaa jira informationka aan ogeyn marka in hadda qof uu hadlo oo inta dhegaysanaysana waa in kooban laakiin nidaamka aad ku bilowdeen nidaamka uu hadda maraayo waxa iska bedelay horkac uu sameeyey wuxuu xaq u leeyahay qofka in loo qabto darawalka ah oo soo galaayo iyo wuxuuna xaq u lahayn cod yaroo tuuban oo wiig kastaba lagu soo celiyo intaasaan ku yara beerin lahaa oo waxayna qusaysaa khadadka oo dhan laakiin xarunta unionka inay hadda ka soo baxdaan intaasaa yara dhihi lahaa wallahi golden idea weeyaan waa very good idea weeyaan cod yaroo lasoo duubo oo maaragtay mesh ya waa very important lagu soo celiyo absolutely aad baad ugu mahadsan tahay yeah any more question waxaan filaya waa dhamaataan male waa xiri karaa xiran karaa markan bes waa dabawan waxay hadee waan idin fasaxayaa aad iyo aad baad umahadsantihin mar labaad aynu dadaalno aynu unionkeena maaragta wada dhisano insha allah biidni illah waad salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi